burburkii 19 kadib afar madaxweyne oo hawiye oo soo martay xamar oo laba jeer oo xasan hay iyo cali mahdi iyo shariif iyo cabdiqaasim waa shan madaxweyne afar duulaan baa Puntland looga qaado xamar wax ka badan cali mahdi maxamed waa la garanayaa duulaankii ay raaca ahaa markii ka waxa lagu tarwaayo lagu soo jabayna al-ittixaad xasan daahir oo uu hogaaminayo واسقنا أورور ديميد أهل السبيعي. كنت ونكسن دقيستيال تعوديال كان نقل سعطان وفايتين ميديا فضلا فلو شير لايك يوتيوب كنا سبسكرايب وحقتك تليفون كانوا جرا سياسي آدم رفلة وحنو حكوا يدين دونا بالأركتلا سكو آدم سدو أركو إن شلي وحال مقعابي مدحونا تمرد في رالك الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مقعابي سرية قوتو أسد عثمان عبد الله والله يقن أسد ديان مدن هذا مقشو أركتلا هذا بل سدادو أركتو إن تليه عيدن كبولس كي شلي المقعابي وان سلام يا أمد الصومالي جدعان دلوقتي داخل بقارها وحن سلام يا بعدين الصحافة دا انت انا اركتي اسقلين وحان دي لها وحبات كوري ارنتان ايضا وحبات دليي مركا وحان كوري مال مكور مدحوينها بطلان وحو سميي الشرق قرنقسيا صوماليا ويتبر يرتهاي argagixisa ka dhex dagaalamayso dawladda ajnabina faragelin bay ku hayaan wuxuu ku baaqaa ninkaas in la wada hadlo loo turo shacabka Soomaaliyeed arrin marka laga boobsiinayo Soomaaliya inayna dhismin baan u arkaayo loo adeegsanayo mucaaradad loo adeegsanayo maamulka Puntland iyo haybka uu ka soo jooda Asad Diyaane Daarood in lagu la dagaalamo sidii ay ahaan jirtay ba awal sidaas aan u arkaa مدن لكن هدي لما قعابي ثليه عينك بوليسكا صوماليات سامي قيب ساهان ان سيده ايا يوتاي سيكلا ونقن كرتا سداس هذا وجهي dad ma santaay aan rabaa inaan taariikhda dib u jaleecno waxaan ka baranay inaan sheegno burburkii 19 kadib afar madaxweyne oo hawiye oo soo martay xamar oo laba jeer oo xasan hay iyo cali mahdi iyo shariif iyo cabdiqaasim waa shan madaxweyne afar duulaan baa Puntland looga qaado xamar wax ka badan cali mahdi maxamed waa la garanayaa duulaankii ay raaca ahaa markii ka waxa lagu tarwaayo lagu soo jabayna al-ittixaad xasan daahir oo uu hogaaminayo wasaquna urur diimeed ah la sameeyay 2000 ilaa 2003 inta u dhaxaysay Cabdiqaasim Salaad Xasan waa garanaysaan oo wuxuu diray Ali Jaamac Ali Jaamac iyo raglaha waa lagu soo fashilmo waa laga yimid Sheekh Shariif oo wax dagaal meesha kama dhicin midda afraad waxay ahayd Xasan Sheekh Maxamuud 2012 2014 ilaa 2016 duulaanka adogeyd baa dhacay markii lagu jabo lagu fashilmayna shaatiga loo bedelo argagixisadii Isuuj iyo Garmaal talada nugaal gudub iyo bariba loo diray waa la garanayaa argagixisadii markii laga adkaadayna baraxley baa dagaalka laga bilaabo asagoo socda doorashadii dhacday 2017 markale Xasan markii la doortay 2022 wax aan hadal madaxweyne ahayn iyo hadal mas'uul iyo hadal Soomaaliyeed ba ka yeeray shaqaduna saas u bilaabay wuxuu yiri Puntland 24 sano dhisnayd 24 maalmood bay ku dumaysaa waxa la abaabulay ciidamo dagaal baa laga dhexriday dhibaato la sameeyay doorasho qof iyo cod oo dadkaas iyo shacabkaas iyo maamulkaas ay rabeen baa la dalfiyay doorasho dadban baa la aaday markay guuleysatay caleema saarkii buu gogol dhigay ninka la yiraahdani madaxweynaha oo meesha lagu casuumay gogosha iyada uu ballan ku ka soo tagayna Puntland looma joojinayo yiri macnaheedu waxay tahay gobolada 13 ee Soomaali Sood la yiraahdo ama koonfurta Talyaaniga uu guuleystay
saddex kamid laba kamid ah Puntland ku fadhidaa haddii hayb loo dhigay haddii deegaan loo dhigaba wixii la doonaa loo yiraahdo ningeeda tiriyo yaa ka tagay weeyo Soomaaliya kulmayso waqooyi galbeed kuma jirto Puntlandna looma joojinayo macnaha waa saas hadda asadna waxbaan kala yahay xasanna waxbaan kala yahay xasan madaxweyne Soomaaliyeed oo mucaarad u abaabulaya dalkiisa gudihiisa nin durbaan garaacay ilaaq dalbay inuu madaxweyne noqdana rabo weeyo asad waxaan leeyahay taariikh ahaan amaana badan iyo waxqabad badan baa taariikhda ugu qoran eedaana waa u qoran yihiin oo ay ka mid tahay dagaalkii Boosaaso tusaale doorkan doorkii ka horeeyay asaga dani markay tartameen wax ka yar laba cod baa looga badiyay hadda markii la tartamayna laba cod buu helaa waa daawac ka gaaray xagga bulshada haddana asaga iyo galan iyo magacyada iyo magacaabista aan jirin iyo xilalka beenta waxa loo magacaabay waa in Puntland lagu duulo oo wajiyo badan loogu duulo waji mucaarad oo dadka ka soo joodo oo dadka kala jabinayo qabiilka si falfaleerayo waji argagixiso iyo mid irir iyo daarooda intaba taasoo lagala joodo in lagu waciyo dagaalka waqooyi galbeed Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka socdo tabarjabin waa maamulka gaamire Puntland dhibaato waa shacabka gobolada uduga degan waa hubaa inay ka warqabaan marka waxaan leeyahay asad labadii doorasho Puntland midna sumcad baad ku lahayd midna waxa ka soo gaaray waa aragtaa Soomaaliya taliya lagaga dhigay taariikh fiican oo horena waa leedahay dhaawacyo boogaana waa leedahay dan Soomaaliyeed ka shaqeey dadkaada in lagu adeegsadana ka fogow nin dhalinyaro soo koraya tahay taariikhdana maanta wixii aad samaysaan iyo ku qorayna waa mahadsantiin waa tahay mudane waxaad sheegtay arrimo badan baad ka hadashay arrimahaas aad leedahay Puntland baa lagu weeraray horena u dhacday waxa ayaa wada macnaha ayaad ka wadaa yaa sabaabulaya waxaan ka wadaa nimanka hadda xamar haysto Soomaaliya dawladnimada u diidan oo doorashada ku soo galay yaa ahay iyo reer hebel oo soo baxa iyo hebel oo naga soo bax kursiga markay qabsadeenna Soomaaliya argagixisada gobol walba ay haysato wixii qalab iyo hub iyo hanti la lahaa inta raray macawisley Malaysia beeleeda siiyay dhulka iyagoo ay deganaan awoodi la aaday marka mudane sideeda dalku waa 4.5 baa la isticmaalaa intiina way ku suntan tahay oo wax laga tagay ma jiraan golaha xukuumadda golayaasha dawladda xagee qaladka aad ka sheegaysaa adigu Soomaaliya way dhiban tahay way burbursan tahay tabaryari badan iyo dhibaato ka jirto qabiil baa loo kala shakisan yahay madaxweynaha meesha qabsaday inuu dadka Soomaaliyeed isku wado maamul goboleedyada u yeero asagu u samro kuwa xuduudaha degan u yeero ciidamada iyo magacaabista iyo dhismaha iyo waxaas ayaga uu ka fikira asaga la rabaa 2 sano iyo 4 bilood buu Xasan joogaa 2 sano iyo 4 biloodna Puntland oo maamulada Soomaaliyeed ugu weynayd dhulkana Soomaalida koonfurta la yiraahdo saddex ka meel laba ka ahayd looma joojinayo leeyahay marka arinta gabadhi oo cadifada iyo cunfi iyo nacayb weeyo marka arinta ma loo aaneyn karaa bad isleedahay mudane siyaasad ahaan in la isu hayo aragtidaada ma isleedahay mise wax ka duwan adeer haddee siyaasad laba nin oo siyaasiyiin waa isku hayn karaan laakiin bulshada intaad aragtay la eeg inta fagaara madaxweyne qaran soo istaaga uu yiri 24 sano dhisnay 24 maalmood bay dumaysaa ooska xariiq waa qodob in la yiraahdo madashi Soomaaliya kulmayso Puntlandna looma baahna la yiraahdo ayaduna waa qodob kale hooska xariiq in la yiraahdo Puntland ma aadi karto doorasho qof iyo cod ah Soomaaliyana qof iyo cod baa loo wadaa markaan isku soo ururino gabay baa jiray la yiraahdo dudada kii u ooda haddana didiyay geeli dabka wuxuu ka qaataa shacabku dood nin weyn yiri arab dalalayo way kala gartaan kii dantooda in la daraasan kara ha u marayn daayin abidka dadweynuhu waxay leeyihiin hadalkooda lama arag dameer geesan iyo dawlad reer qura
waxay doonayaan wadajirka taamaday weyda marka in ceel dheer iyo cadala iyo warsheekh iyo xarar dheeraan xorayna Soomaaliya loogu faano meesha la yiraahdo Sablaale iyo Kurtuwaarey iyo meesha la yiraahdo Bu'aale iyo Jilib iyo Hayjamaxaad iyo Saako iyo Jamaame iyo Badhaadhana ay haysatoon la aadin in la yiraahdo gadaha la go'doomiyo in Cabudwaaq iyo Balanbal lagu duulo waxaasoo dhan waa wixii 19 baa loo noqonayaa fiqi iyo mahasalaad iyo xasan ay kaambeynka ku galeen waxa Puntland loogu duulayo oo mucaaradkeeda hadda xilalka loogu dhiibayana in ayada la burburiyo weeyo markaan ku soo koobo 4.5 ku dadku waxaa la rabaa nin bulshadiisa wax ka ah wax geyn karo sumcad ku leh tusaale markaan ku siiyo taliya ka horeeyay dhulalka ugu weyn Soomaalida koonfurta degan baa reerkoodu degan yahay meel u tagi kareyna afmadow baa ka jirtay gadana ma imaan sool iyo sanaag iyo cayn ma tagin bari iyo nugaal iyo ma tagin meesha la yiraahdo mudug galguduud iyo Cabudwaaq iyo Balanbal ma tagin inta ma tagi karin 2 sano iyo bar buu wuxuu u dhaxeeyay lambar 4 iyo meesha la yiraahdo Kismaayo kana sidoo kale uu go'doon u noqonayaa laakiin waxaan leeyahay ficil dagaal ka fogow wiil oo dhalinyaro tahay doorkii hore baawrkii aad lahayd iyo doorkii dambe ka lahayd isu fiiri barinimaan doorano oo aan booga lahayn noqo haddii kala soo oradadeer xamar nin laga tuuray Puntland waa ku soo jawaab mahadsantiin marka gabagabadii mudane adigoo u eegaya dhanka bulshada Soomaaliyeed 4.5 kii hadda uu ka muuqdaa bulshada qaybaheeda kala duwan dawladuna way wadaa si habsamay wax wadaa waxaa jira ina Ethiopia in ay dalkiina u soo dhaaranayso aragtiyahaas oo markaa isku soo darto soo aragtaa adigu adeeraad baad ma santahay 4.5 kii May 2022 buu ceel ku dhacay xidintii anagu aan lahayn oo ra'iisul wasaaraha Xasan baa jeebkiisa inta galiyay madaxa dhulka ku socotay madaxa dhulka u dhigay wax 4.5 la yiraahdo aan aragnay iyo wax qayb ah oo aan ka nahay dawladda xamar caalamka buluuga ah ka jiro waa qodobka labaad Ethiopia hadday badda Zaylac u dhaaranayso Kenya waxay haysataa baddii Kamboni ku dhaabo Burgabo meesha la yiraahdo Kismaayo nimankii ka gaday oo siyaasiyiinta ana waa xildhibaano iyo wasiiro xamar joogo oo ayna Cabdishakuur iyo Sheekh Shariif Kenya waa gaalo haysata NFD Ethiopia waa gaalo haysata Soomaali galbeed waxa askariga Soomaaliga oo Kismaayo iyo afmadow fadhiyo iyo midka Ethiopiaanka oo Baydhabo Garbaharey fadhiya ay ku kala duwan yihiin anigu ma garanayo nimanka hawiyaha la wadiyo waa mahadsantiin gabagabadii marka maxaa ku soo gabagabayn lahayd hadda aragtidaada bal bulshada Soomaaliyeed ka dhageysanaysa warbaahinta laba qolaan baan u dirayaa shacabka Soomaaliyeedna baan u dirayaa qolada koobaad nimanka xamar qabiilka u sheegtay oo shacab wanaagsan oo Soomaalida jecel weeyo laakiin siyaasiyiinta antur akhaaka zaaliman aw madluuman baxadiisaha Xasan waa wareersan yahay wadada oo hayana mid saxda ahayd ma qabta waqtiga yar oo u harayna Soomaalinimaha raadiyo koonfur galbeed ha u yeero dani ha u yeero cid kale oo laab jirta ha u yeero Xasan gacanta ka qabta wadada oo hayo qolaas intaas aan u dirayaa wiilasha Maxamuud Saleebaan anigu cid kala dhimahay ina diyaana ugu weyn yahayna waxaan leeyahay ku idin ka horeeyo xamar laga tuuray ceebtay galeen waa ogtiida ciideena col hal la soo aadina xamar laga soo diray shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii dawladda ajnabi oo dal haysata iyo mid dal dhacaysa la iska celiyo wada jir baa la raadiyaa ma jiro reer wakiil ooga adaniisa gaarka ah Soomaalida in la raadiyaan Soomaali oo dhan u dalbaya oo loo raadiyo in dalka dadka iyo diinta wada jir loo difaaco khaladaadka dhacaya iyo boobka iyo hantida la boobaya iyo balaha la gadayana laga digtoonaado mahadsanto aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa siyaasi Aadan Axmed Xirsi oo loo yaqaano Aadan Rufle waa mahadsan tahay mudane